maanta ay tahay taariikhda ay ku beegan tahay 29 bisha shanaad ee May dalka Koonfur Afrika guud ahaan waxa loo dareeray doorashada guud ee dalka Koonfur Afrika halkan aan ku suganahay waa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika xaafadda Soomaalida ay u badan tahay Mayfiya sidaad arkaysaan ba safaf dheer ayaa lagu jira dadkan ayaa halkan soo istaagay waqti hore saaka Ali Saydi waxay u soo istaageen si ay u doortaan madaxweynaha marka ayaga ah ay doonayaan inuu doorashada dalka Koonfur Afrika oo madax ka noqdo waxa kamid ah dadka wax dooranaya dadka Soomaaliyeed ayaa kamid ah kuwaas oo codadkooda baxsan walow ay yihiin dad yar oo fara ku tiris ah waxa horteeda ka muuqda wiil dhalinyaro Soomaali ah oo faylkan ku jiro oo doonaya inuu doorto madaxweynaha 5 sano ama 4 sano u talin doona dalka Koonfur Afrika walaal soo dhaw magacaaga magacii walaal waa Mursal Axmed waxaan kamid ah dadka maaragtay maanta in codkooda dhibtaan rabo waana ku faraxsanahay waa markii labaad aan meeshaan imaado kiigan soo galo marka waan soo dhaweynay waan rajaynayaa insha Allah Mursal aad u mahadsantahay doorashadan iyo doorashooyinkii hore maxaa farq oo kala dhaxeeyo wax badan ma dhaxeeyo doorashadan iyo doorashooyinkii hore waa wadankan mar walba doorashadiisu waa wadan maaragtay adu malayso wadamada horumar ku jira marka resultiga baa isbedeli kara maahane waxa isma bedeli karaan sida wax socdaan Jacob Zuma madaxweynihii hore doorashada waa laga reebay maxaa dhibaato ka iman kara la isdhihi karaa waqti walba waxaan ognahay in markay doorasho u dhaca boob iyo dil iyo in macnaha dadka u dhashay dalkan ama xisbiyada kale laga guuleystay ee rabshado ka ciyaan والله wax cusub waa nagu cusub arin cusub ma isliin wax badan dhici doona insha Allah khayran rajaynayna laakiin waxaan isleenahay waa maxaa la yiraahdaa waa arin ugu baahan aan hadda hor dhicin madaxweynaha dalka soo maray inuu hadana asagii xisbi kala furto dalkan waa ku cusubtaa marka waa laga yaabaa in wax isbedelaan in wax dhicin waa laga yaabaa insha Allah laakiin khayr baan rajaynayna insha Allah aad ma santo ka maanta guul ku rajaynaya waxaan maanta u taaganahay codaynta maalinta 29 bisha May waa codaynta ka dhacaysa dalka oo dhan gaar ahaan waxaan ka codeynaa magaalada Johannesburg xaafadda Mayfiya ee Soomaalidu aad ugu badan tahay doorashadani waxay doorashooyinkii hore kaga duwan tahay waxa la filayaa in uu dhaco in ay ANC ka hoos marto intii la filayay ahayd codka koob intii ka badan inay hesho taas waxay keentay markaa inay xamaasad u yeesho doorashadani xisbiyadu tartan adag bay ku jiraan lamana garan karayo xisbi soo bixi doona ha yeeshee soo galootiga iyo dadka ajnabiga ah waxa u roon xisbiga ANC oo ah xisbi ahaa yani u soo halgamay dalka fahamsan siyaasadda dalka u dagaalami jiray dadka madowga yani tirada badan laakiin xukunka laga haystay xuquuqa fara badan ilaaliya marka xisbigaas ayaa xisbiga dadka soo galootiga u roon xisbiyo fara badan oo kale oo waxa jira iyaguna kuwa ku xiga laakiin ajnabi nacayb baa lagu eedeeyaa inta badan waxaana la yiraahdaa waxay ilaaliyaan dana gaar ah marka saasaan u arkaa maanta doorashada saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dawladdan hadda talisa waa dawlad dadka oo dhan u siman ilaalisana muxuu ahaa maaragtay dalka iyo dadka ajnabiga soo galay iyo xiriirada ka dhaxeeya caalamka iyo dawladda Koonfur Afrika waana dal aad iyo oo dad waa urur aad iyo aad yani xiriir ballaaran oo la dunida inteeda kale taa ka sokowna waa urur يعني tirsanaya in wax loo taray xilligii uu soo halgamay marka hadii uu waayo saameyn badan bay ku yeelanaysaa laana ururada kale waxyaabaha ay ku ololeynayaan waxa kamid ah inay dadka ajnabiga ka saarayaan dalka This morning to vote, it's very important to vote, change our country, hoping for a better change also. And I think while we are voting, we also need to think about people in Palestine even. And as we know, South Africans are very together with our people in Palestine, so that's how I'll be casting my vote today. And wali waxaan ku guda jirnaa inaan idin soo tabino wararka la socdo doorashooyinka dalka Koonfur Afrika oo maanta 29 bisha shanaad ee May dhacayo gobollo kala duwan ayay ka dhacayaan amnigu wuu saxan yahay walow daqiiqad ama saacadba saacada ka dambayso laga yaabo inay wax isbedelaan meelaha qaar ay xisbiyada ay maaragtay ku tartamayaan xisbiyada ugu cadcad ee dalka Koonfur Afrika doorashada loo rajaynaya ayaa waxay ay kaliin xisbiga ANC oo talada wadankan hayay ku dhawaad 30 sano uuna xukumayo aan yiraahdo uu hor socdo madaxweynaha
talka hayo Ramaphosa sidoo kale waxaa jiro xisbiga EFF oo hogaamiyo wiilka da'da yar ee Julius Malema iyo xisbiga cadaanka ay xukumaan ee la yiraahdo DA wixii warar oo ka soo kordho waxa halkan aad nagala socon doontaan hadduu rabbi raali ka noqdo waxaan ahay Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika